xidigta caanta ku noqotay cabtooy ma tahay Mustalifa Maxamed Cusmaan ayaa maanta guurkeedu ka dhacay magaalada Nairobi. Cusmaan oo ah xidigta ku caanbaxday cabtooy ma tahay ayaa maanta meherkeedu ka dhacay magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya. Mustalifa ayaa dhalatay 22 Abriil 1999 Mustalifa waa YouTuber sidoo kale waa shacabka Soomaaliyeed waxay caan ku noqotay hal ora taasoo ah cabtooy ma tahay waa kan mar ay lahayd cabtooy ma tahay nala daawada rahmatullahi ta'ala barakatuh maanta xayitunkay martiqaa ما كان قد عطوي ما تقاش كل شيء بس أبو جربل ولا فيري خاطري ما يهنس كل درنا قالوا بخرطوي قد أفبونا تاك ولا Mustalifa sidoo kale liibaan maadaama uu maanta meerkooda ka dhacay magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya waxaan leenahay inagoo isku duuban gaar ahaan team Sona official sidoo kale dahabeenka ka tamatiyo waxaan idin leenahay labadiis ku waruubad qabad kale hela wada jiray nabad kala guulow qiyal markale waxaan u hambalyeynaa Mustalifa Maxamed Cusmaan sidoo kale saygeeda cusub ee liibaan Mustalifa waxay ka tirsan tahay xidigaha YouTuber-ka Soomaalida gaar ahaan kuwa jooga magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya. Mustalifa waxay ku soo baxday barta caanka ah ee TikTok uu leeyahay ninka China. Mustalifa inta badan waxa ay soo saartaa barnaamijyo xiiso leh haddana inta badan waxa ay caan ku noqotay hal orah oo kaliya isla markaana guud ahaan ee bulshadu si isku mid ay u isticmaalaan xitaa mararka qaar codkeeda ayaa loo soo qaataa markii uu faar dhaco kale wadku masantiin dhageysiga sidoo kale janqaadka barnaamijkan xiisaha badan wadiisa badin doona fadlan subscribe like share comment inta ku wadhankiina aad ugu masantiin